wafdigooda ku weheliya. waa markii ugu horeysay oo ay kulmaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi iyadoo dhowr jeer horena ay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dib u dhaceen. labada hogaamiyena muddadii ay talada dalka hayeen waxa soo ifbaxayay in wada hadalada halkaasi lagu joojiyay kadib markii ay labada dhinac waqti ay ku ballansanaayeen dib looga furo wada hadalada la isku aqbali waayay dhinacyadii kala matelayay, taasi oo ay Soomaaliland ka biyadiiday dhinacii ka socday dowladda Soomaaliya ee wada hadalada u qaabilsanaa. balse dhawaan ayuun bay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabay guddi wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagu loo xil saaray shaqadooda in ay dib uga bilaabi doonaan si wada hadaladu ay furmi lahaayeen mar kale. tani ayaa ku soo beegmaysa kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maalinimadii Axaddii 9 bishii 2020 uu ka baxay magaalada Hargeysa xilligaas oo uu sii jeeday magaalada Addis Ababa oo uu ka helay martiqaad wadankaasi Itoobiya ra'iisul wasaarahooda Abiy Ahmed, iyadoona halkaasi hore ugu sii sugnaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madax kale oo ka socota qaaradda Afrika iyo beesha caalamka, kuwaas oo iyaguna ka arrinsanayay shirka midowga Afrika qodobadii ku saabsanaa xabad joojinta iyo sidii loo gaari lahaa horumar qaaraduna ay noqon lahayd mid halkii hore laga sii anbaqaado. la arki doonaa wixii ka soo baxa kulankan labada mas-uul dhex maray aan cidina ku wehelin warbaahintana ilaa hadda aan loo xaqiijin waxyaabaha ay ka wada hadleen. Maxamed Tirike, wararka Bulsha TV.